loo bogo bulshadii shacbigu ku haraad baxeen marna baadilkii jahligii bahdilay ay kaga baxeen shamsi soo baxdo boqornala damciyo dacwo waa barkulan loo baahi qabay waxaa maanta magaalada Hargeysa xaflad qalinjibin lagu qabtay 100 arday oo ka qalinjibisay maxadka dacwa qaybta New Hargeysa ardaydaas oo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo dugsiga hoose munaasabada qalinjibinta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Khadar Cali Xakiin Jamal Aadan Diiriye iyo Cabdi Xakiin Hungur sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb gashay gudoomiyaha waxbarashada degmada Maroodijeex Aamina Casir maamulayaasha maxadka dacwa waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay maamulayaasha maxadka dacwa Cabdalle Cabdiraxmaan Jaamac iyo Ibrahim Xirsi oo ka hadlay maraaxisha uu soo maray maxadku xafladan ay maanta joogno haddaan ka warbixiyo waa xaflad ay ku qalin jebinayaan 100 arday oo wax ka dhigta maxadka dacwa faraca New Hargeysa 100 arday waxa ay kala yihiin 35 arday oo maxadka ka qalin jebiyay qaybta dugsiga sare 17 wiil iyo 18 gabdhood oo shahaadooyinkoodii la siiyay oo ka qayb galay maarta xafladii guud ee loo qabtay ardayda maxadada dacwa kowdii bishan ay joogno ardayda maanta wayna la joogaan xafladana waynu qabanay waxaan ugu qabanay inay sii sugootino kula dardaarano inay cilmiga sii wadaan oo jaamacadaha iyo xalaqaadka masaajidada ay ka qayb galaan oo halka ku joojin waxa kale iyadana xafladda aanu qabanna 65 arday oo ka qalin jabiyay maxadka qaybtiisa dugsiga hoose dhexe oo imika u soo gudbay qaybtii dugsiga sare 65 ka arday 36 kamid waa hablo 29 kamidna waa rag tira ahaan 100 ka arday 54 waa dumar 46 waa rag tira ahaan way isu dhow yihiin waana isu dhigmaan maxadkan dacwa aasaaskiisu wuxuu ahaa si guud 2003 waa maxadada dacwo dhan marka laga hadlayo gaar ahaan maxadkan New Hargeysa ku yaala ee maanta xafladiisa fadhino waxa la aasaasay 2013 bishii 9aad hadda waa uu 10 jirsaday oo 10 sanadood ayaa ku jiray 10 ka sanadood ilaahay waxa uu ugu guuleeyay in uu soo saaro arday aad u tiro badan waxa uu soo saaray 7 dufcadood oo kala dambeeya ama 7 lod oo kala dambeeya ardayda maxadka ka qalin jebisay kumanaanka ah ama boqolaalka ah dhamaantood intooda badan waxa ay galeen jaamacadihii waxa ay qaateen heerka koobaad ee shareecada ee master degree-ga qaar kale waxa ay marka qorshaheedii wadaano ay dibadda ugu baxayeen ama gudahaba ka bilaabeen heerka masterta in badan oo kamid waa macallimiin wax ka dhiga madaarista iyo macahadada qaar kale ka badanna waxay maamul ka yihiin madaarista iyo goobaha waxbarashada xataa maamulka maxadka waxa kamid ah ardaydii wax ka baratay maxadkan dacweyn maanta halkan u fadhino waxa ka shaqeeya 15 macallin ilaahay mahadi 15 ka macallin ee ka shaqeeyay 8 kamid waa ardaydii ka qalin jebisay maxadkan taas waxay ku tusaysaa fursadda fiican ee uu maxadku siiyay ardaydiisii uu wax baray iyo inuu soo gacan qabto wax baray mar labaadna uu macallimiin ka dhigay oo uu hore u socodsiiyay mar saddexaadna ay maamulka maxadka ku jiraan maanta maxadka dacwa risaaladu waxaan baarsan yahay ee uu gudbinaya waa inuu dadka diinta islaamka ka qabtiro oo uu soo saaro inama ducaada oo u tababaran diinta islaamka siday dadka u gaarsiin lahaayeen macallimiin u noqon lahaayeen dadka jahliga ay uga saari lahaayeen maalintii aanu asaasaynay 2002 ama 2003 muddo 6 bilooda ayaan u fikiraynay annagoo markaa jaamacadii dabadda ka soo noqonnay inaanu maxadkan aasaasno 6 bilood buu riyo ahaa oo aanu mar walba u fadhiisanaynay maanta maxadka ilaa 1500 arday baa dhigta lixdiisa farac wajaalaa jira 2 farac oo kale imika la furaya ayaa jira dhammaan magaalooyinka galbeed iyo bariba inuu gaaro ardaydiisu gaarsiiyaan baynu doonaynaa waxa kale aynu doonaynaa ardayda maxadka ka baxda sida uu Sheekh Cabdalle sheegay waxaan u abuurnaa fursadaha soo baxay inaanu iyaga siino jaamacadaha markaanu deeq waxbarasho ka helo iyagaanu siinaa oo taqriiban arday kontoneeya ayaa jaamacadaha Sacuudiga iyo Suudaan wax ku jira iyo wax soo dhameeyay oo ilaa master iyo ilaa PhD wada
sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Murudijeex oo iyagu la dardaarmay ardayda maanta ka qalin jabisay maxadkaasi. halkan waxa fadhiya arday waxay u badan yihiin dhalinyaro aad u yar hablay u badan yihiin aad baan u amaanaya ma sha Allah alxamdulillah marka hablaheenu wax bartaan qoysaska inoo hagaagaya qoyskuna markaas haddii qoysasku hagaagaan mujtamaca dhammaantii uu hagaagaya mar labaad cilmiga la barto marka yaraanta waxa weeyaan ka naqshin cala alxajar waa sida dhagax lagu qoray wax lagu qoro kale maxadkan waxa sharaf inoo amaanta inay habluhu ku dhow yihiin inamadii aad moodo bulshadeedu inay aad u soo ilbaxayso waxaa kaloo hambalyeynaya hooyooyinka waayo waqti dheer oo shaqada macalinimada ku jiray oo runtii shaqo aad u sharaf badan ah hooyooyinka waxay ka mid ahaayeen dadka mar walba ardayda la daba taagan dadaalka ee shaqada u badan qabta in la dhiirigeliyo macaahida noocan oo kale ah waa shaqada dowladnimadeenu ay ku sii taagnaan karto tiirarka ummaduna ay ku hagaagayaan runtii aniga maanta farxad bay tahay aan la qiyaasi karin inaan ka qayb galo maxadkan islaamiga ah waayo xafladaha ugu qiimaha badan leh ayay ka mid tahay xafladan islaamigii waxaan u mahadnaqayaa runtii waalidiinta halkan fadhiya ee gartay carruurtooda inay baraan wixii ay kaga gudbi lahaayeen dunidan ay ku nool yihiin maadaamay islaam yihiin qofka islaamkii waxaa loo baahan yahay inuu qofkiisa baro wixii dunidan uu kaga gudbi lahaa ilaa halkii loogu talagalay uu tegay ee aakhira ahayd uu gudbay sidoo kale iyaguna waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabada garaad cabdi cilmi shide iyo gudoomiyaha jaamacadda Albayaan. aad baan ugu faraxsanahay ardaydan quruxda badan ee habliyeen maba leh ee sharfan ee lagu shubay quraanka dhalinyarada waxaan leeyahay saddex la saaxiiba salaada waalidka macallimiinta waa dhergeysan akhriyad biyada saddex la saaxiibtaan waa nicmo mudan inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu shukrino inaynu maanta u fadhino qayb ka mida barbaarteennii amba da'yarteennii oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu soo anqariyey oo la soo baray oo xaflad dugsigii dhexe qalinjabintiisii aynu u qabanayno xafladdan waxaan isleeyahay macaahidda shareecada marka la eego macahad dacwo iyo macaahidda la midka ah waxaan isleeyahay xafladdani waxay noqon kartaa tii koowaad ee arday macaahidda shareecada lagu barto dugsi dhexe shahaado ka qaadanaysa la iskugu yimaado ardayda qalin jabinaysa iyo carruurta inta dhigataba maxadkan dacwa waxaan leeyahay hambaliyo waxaad baranaysaan waa diin weeye diinta islaamka ayaa baranaysaan maxadu dacwa waa maxadu dacwa waa dacwadan waxaad doonaysaa markaa inaad idinkun berito waxaa laydinka baahan yahay berito inaad noqotaan macallimiintii maxadkan wax ka dhigi lahayd maamuli lahayd sida macallinkiina mudiirkiina cabdalle uu uga baxay maxadka maantana uu yahay mudiirka farcanayu hargeysa yahay ka baxdeen waxa la yiraahdaa magaciisa machad ad-dacwa macnaheedu waxa weeyaan waa baaq yeedhmo aad xaq dadka ugu yeedhaan ardayga halkan ka takharujaa oo inan ah ama gabadh ah waa inuu ku talagalaa dadka inuu diinta ugu yeedho inama al-a'maalu bin-niyaat wixii aad baratay dadka ugu baaq mar labaadka waa inaad ku camal fashaa bariyahan dambe camalkii baad moodaa waxoogay inay wax ka yara qaldan yihiin mar saddexaadka ikhlaaska waa in lagu dadaalaa ma aha haddaad shahaado qaadatay ama jeene qaar yar garabka aad ku qaadatay inaad sawir iyo waxaasun ku mashquulsho maahee waa inaad cibaadadu shukri bay u baahantay ilaahay ugu shukri noqdaa aqoonta uu ku baray gabagabadii waxaa munaasabada shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay maxadka dacwa caamir cabdirashiid cabdilaahi camri yabaash saab TV magaalada Hargeysa.